maanta xaaladda uu ku sugan yahay inaan ogaano bangigeenna waxaa maamula 4.5 wax la yidhaahdo ilaah baan idinku dhaariyey ilaa baarlamaankii sideedaad waxaa bangigaas lagu soo xulaayay wax la yidhahda 4.5 ninka ka hadlaya maanta muwaadinimo iyo wax walba ka hadlaya ee dalan u dhaqanaa leh ee bangigiisii bangiyadii baraanjiyadii Brim Bank iyo Salaam Bank ay ka hormarisiin yihiin oo baqaarab la moodo bangigeeni ayaa waxaa leh ajaaniba loo dhiibaya dakhliga dalka meelaha ugu wanaagsan waxaa ka mid ah dekada yaa noo hayo oo dakhliga soo aruuriya waxaa soo aruuriya hay'ad shirkadda oo ajnabi ah eelaboorka yaa soo aruuriya dakhliga ka soo xareedo eelaboorka waxaa soo xareeya hay'ad shirkadda ajnabi ah maanta xalkeena wuxuu ku jiraa aniga hadda ma maqlin cadaana loo dhiibaayn kan gaalka ugu madow in loo dhiib waayo waxa aan ku kala baxaynaa oo kaliya oo xalaasha ah waa ayaga ninka halkaa inta soo taagay muwaadinimada ka hadlaya shan sano markuu joogayaa baasboor British inta la siiyaa wiilkiisana bangiyada ugu qaalisan ay ka shaqeeyaan discrimination waaye ma aha muwaadinimo dalkeena waxaan rabnaa inuu furfurnaado dalkeena waxaan rabnaa inaan adduunyada wax la qaybsano dalkeena waxaan rabnaa inaan cadaalad dhabeed dadkeena loogu maamulo ma doonayno 4.5 iyo wax la mid ah waxa lagu soo xulay dadka hadda qaylinaho dhan waxay rabaan 4.5 in loogu soo xulo adeer lacagta ceeluray iyo makoyle iyo dhiriyow laga soo aruuriyo 4.5 kuma qaadanaysa ee canshuurta shacabka Soomaaliyeed waa maasanta aad u maasanta